السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan carruurtayda Soomaaliyeed asxaabta qaaliga ah meel walba aad joogtaan waqti walba uu idin yahay ha idin wacnaado dhammaanteen raalli ah insha Allah. inta xanuunsan Allah noo caafiyo, inta culays hayna Allah ka qaado. qof walbana waxa uu jecel yahay oo khayr ah Allah siiyo. dhammaanteen raalli ah insha Allah. beejku waa macna Saalax Faarax Maxudiin. barnaamijkeena falanqaynta isboortiga horyaalka Somali National League oo laga ciyaari doono laba kulan garoonka Engineer Riso iyo garoonka weyn ee Stadium Muqdisho lagu kala ciyaari doono iyo kooxaha wada ciyaari doono. kooxda Hagen ee ku guuleysatay koobka munaasabadda 1 Luulyo, koobka qaramada Yurub, wadamada Faransiiska iyo Boortaqiiska oo u soo gudbeen wareegga 8 dhamaadka. haddii aan ku bilaabo kooxda Hagen ee faca weyn ayaa ku guuleystay koobkii munaasabadda 1 Luulyo, kulan aad iyo aad u xiiso badan oo final ahaa ay la ciyaareen kooxda gaadiidka. kooxaha Hagen iyo gaadiidka waxaan ogeyn inay kasoo kala badiyeen kooxda Cabi Maalin Horseed oo gaadiidka kasoo badisay 1-0, kooxda Hagen oo MCC rigorooyinka kasoo badisay. shalayna waxaa fooda isdaray labada kooxood oo qaab ciyaareed fiican ku jiraan, diyaar garow fiican ka muuqdo. horyaalka Somali National League runtii kaalmaha dhexe ku jiro. kooxda gaadiidka ayaa waxay kamid tahay kooxaha ugu kubadda wanaagsan xilli ciyaareedkan ama sanadkan. aad arkayso kubadaha isku xirka team ahaaneed. kooxda Hagen ayaa iidan waxay tahay kooxaha ugu wanaagsan horyaalka Somali National League. nasiib wanaag labada kooxood ayaa waxay nasiib u yeesheen inay soo gaaraan koobka finalka 1 Luulyo. ciyaar kusoo dhamaatay 2-0 ay guusha ay ku raacday kooxda Hagen. kooxda Hagen hambalyo ayaan leenahay, hambalyo. waa arkaysaan sida ay u dabaaldegayaan biladihii iyo koobkii la guddoonsiinayo. gudoomiye Cali Cabdi Maxamed iyo maamulkiisa ay guddoonsiinayaan ciyaartooyda ku guuleystay koobka. kooxda Hagen hambalyo aan leenahay qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen iyo sidoo kale kooxda gaadiidka oo ayadan runtii ahayd koox aad iyo aad ciyaaraheeda sanadkan uu aad u wanaagsan yahay. haddana markaa fiiriso aad arkayso jaanisada ay khasaarinayaan, kubadaha ay khasaarinayaan, in markaas lagu cinqaabo, lagu adkaado, lagu badiyo. kulliba la arki doonee kooxda gaadiidka iyo kooxda Hagen meeshay ka gaaraan horyaalka Somali National League. koobkan hadda 4 koox u ahaa waaba dhamaaday, munaasabad ay iska ahayd, laakiin still waxaa furan oo socdo koobka horyaalka Somali National League. qodobkeena labaad, waxaan ognahay inuu socdo horyaalka Somali National League oo laga ciyaarayay hal kulan oo haddana loo bedelay 2 kulan. in 2 kulan loo bedelin macnaha 2 garoon lagu kala ciyaaro si ciyaaraha ay u dhamaadaan. maxaa yeelay waxaa macquul ah in kooxaha qaarkooda ay ka qayb galaan tartamada Kafa, Sakafa iyo Carabta. waxaan ognahay sanadka ugu dambeeyay kooxda gaadiidka inay noo mataleysay koobka Champions Kafa. macnaha horyaalka ay ku guuleysatay qaradana Afrika ee Kafa, wadamada ku guuleysteen kaalinta koowaad oo loo sameeyay qoratuur. gaadiidka ay waxay ku dhacday kooxdaasi reer Rwanda APR
oo uu hogaaminayay macalin mudaadir amiin cali oo xaqiiqdii bandhig aad iyo aad u wanaagsan, kubadda aad iyo aad u wanaagsan lagu soo bandhigay. Labo kulan la ciyaarayay kulan runtii, laakiin nasiib wanaag waxaa suuradgeli weysay inaan usoo gudubno wareegii labaad. Marka saas oo kale waxaa laga yaabaa bishaan haddaan ku jirno in kooxaha wadanka ka dhisan horyaalka ka qaybgalaya qaarkooda in ay ka qayb galaan tartamadaas. saas oo kale Horseed oo Jaamacadda Carab aadays oona ka qayb gashay, kooxda Horseed ciyaarihii Jaamacadda Carab macnaha horyaalada Jaamacadda Carab ka qayb gashay. Kulliba la arki doonay kooxaha nasiibka u yeeshay sanadkii la arki doonay. Horyaalka Somali National League garoonka weyn Stadio Muqdisho waxaa ku ciyaari doono kooxaha dekedaha iyo kooxda Jenyo. Waa kulan aad iyo aad indhaha loogu haayo oo aad iyo aad loo dhowr sugaayo. garoonka Engineer Jerison waxaa ku wada ciyaari doono kooxaha MCC iyo kooxda Badbaado. Waxaan wada ognahay horyaalka inuu ka xiiso badan yahay horyaaladii hore oo runtii aad iyo aad kooxuhu ay iskugu dhow yihiin. Horyaalihii hore waxaa arkaysa markay dhamaadaan in kooxda 32 dhibcood ama 33 dhibcood ay koobka ku qaadaysay badanaa horyaalada. laakiin hadda waxaad arkaysaa ciyaaraha dhiman, kooxda hadda waxay leedahay 35 dhibcood, kooxda labaad waxay leedahay 34 dhibcood. waa dhinaca markaan ka fiirino dhinaca adkaanshaha horumarka, inkastoo 11 kulan la ciyaarayo, 12 kooxood 11 iyo 22 kulan. sanadii hore 10 ay ahaayeen, 9 iyo 9 18 ciyaarood. marka 4 ciyaarood ayaa dheeri ah, 18 ilaa iyo 22 kulan. si kastoo ay ahaataba waxaa dareemaysaa arkaysaa kooxaha inay aad iyo aad hardan ugu jiraan, tartanna ugu jiraan sidii ay ku noqon lahaayeen champion ama kaalinta labaad ama kaalinta saddexaad ama kaalinta afraad. dekedaha ayaa loogu fadhiyaa maadaama lagu soo dhawaado hoosta lagu jiro. haddii ay lose garayso ama haddii baraaji ay gasho ama haddii laga badiyo oo hogaanka horyaalkeeda cariiri uu gali doono, maxaa yeelay hal dhinac keliya ay ku haysaa. kulamada u harsan ay noqon doonaan kulamada Cabi Maalin Horseed iyo kooxda MCC. Macallin Saciid Geese iyo kooxdiisa iyo ciyaartoydiisa oo runtii aad iyo aad oo go'aan ugu qaatay inay ku dadaalaan inay sii socdaan. kulliba la arki doonee Macallin Saciid Geese iyo kooxdiisa dekedaha ciyaartoyda aad iyo aad iskugu xiran. aad arkay sanadkan kubadaha ciyaareedka ay soo bandhigayaan iyo isku xirkooda, aad arkayso inay yihiin koox u diyaarsan horyaalka Somali National League. garoonka Engineer Jerison waxaa ku wada ciyaari doona kooxaha MCC iyo kooxda Badbaado. MCC ayaa waxay fadhisaa booska saddexaad ayadoo leh 29 dhibcood. kooxda Badbaado oo kaalimaha hoose ku jirto, Badbaado Raadsan, Badbaado Midnimo, Kejis, Saxafi iyo Raadsan, kooxaha ugu dhexdhexe inay ka mid yihiin. kooxda Badbaado oo go'aankeeda ayaduna uu yahay inay iska ilaaliso inay u laabato heerka labaad si ay kaga badbaado. weliba la arki doonay kulanka galabta kooxaha Badbaado iyo MCC, dekedaha iyo kooxda Jenyo oo 2 kulan ugu dambeeyay guuldarooyin aad iyo aad u xanuun badan kusoo dhaceen. Macallin Muraad iyo kooxdiisa ayaa loogu fadhiyaa inay galabta sumcadooda dhibcahooda kusoo ceshtaan, sarran u sii socdaan. kulliba la arki doonee. asxaabta qaaliga sharaf iyo karaamo meelba aad joogtaan, barnaamijkeena falanqaynta isboortiga aad iyo aad ayaa idinka mahad celinaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.